بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الشرف تلميذ كساجوتين عن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سكسو الله وشوعان ما وعلى كلام مشغول كيابتي واسكوتين نين الدنيا واسكوتين لما الدنيا جو مع أردت كولا وانا لا مركا الدنيا دا جوت مشغولك دا تبحث حريرة تاع عيال مركا عيال دا تاع ملك تاعي مشغولك واسكجلي وخفك عادي نين كرجع أو لا يرى ذا وكترم مشغول walaalayaal Soomaaliya meel kasta ay joogtiin isku soo laabasho wacan intaas oo baxa barnaamijka maalmaha inta Kampala cid kasto Kampala joogto dhibaatada Kampala ka dhacday xaaladda soo cusboonaatay waa aragtaa shalay wax dhacay ilaa maanta now waqtigan la joogo meelaha barkiis way ka socotaa khalaasa walaalayaal shalay waxyaal badan aragnay shalay anaga joogno meeshaan qaxootiga anaga joogno meesha ku go'dan 12 saac lugtiin ka soo bilaabnay meeshii jaamacadda university ka soo bilaabnay ilaa inta ku imaanay lug maxaa yeelay halaas dhan xaaladda la qiimeynaa waayo shalay dhibaato weyn ah dhacay shalay meel kasta waa la guuray laamiyaasha dhihin boodal wax kasta wax dhibaato la gaarsiin dad Soomaaliyeed dhibaato ku gaartay wiil Soomaaliyeed waa la dilmid naqaska ku xirmay iska dhaafay maanta wiil iika ah Ugandes ah alugaha laga jaray waa aragtay walaalayaal meeshan dhibaato weyn ah socoto waayo ninkii mucaaradka weyn ah la xiray marka waxa loo xirin bal Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa ninka mucaarad waayo wadanka ninkan wuxuu ka taxadiraa wadankiisa inuu u dhismo oo wadankiisa siimbiri qalalaas gal ninkan nin dhalinyaro waayo madaxtinimo horta maba gaaranbo laakiin wax kasta waxa ka dhigayo dhalinyaro waa waa ninka heesaaya hadoo ahay oo siyaas ku soo been horta saddex walaxaad ninka waxa sida ciyaartooyda ah ninka fanaanka ah dadkaas oo kale dadka aad u jecel sida atoorooyinka ka siyaasadda ay ku soo biiraan dad iska jecel shalay iska dhigaysa siyaasadda gal maanta cadiifada ninka ku kacayso marka walaalayaal Soomaaliya meel kasta ay joogtiin is ilaaliya dhibaato wadankeena ugu soo baxnay haddana anagoo wadankeena ka soo qaxnay oo wadankan nabadgeliyo iyo waxaas u imaanay oo haddana dan loo wada imaaday haddana haday dhibaato kugu sii gaarto waa dhibaato marka waxa loo baahan yahay is ilaali haday dhibaatana gaarayso wadankeena inuu noogu gaartaaro intii wadanka noogu gaarlay walaalayaal iska taxadira wadankaada aan dareen ku joog waaye nabadgeliyo waana siiyay laakiin inta qalalaasa socod waxaan way iska dhamaanayeen laakiin nin kasta waxa loo baahan yahay inuu iska taxadirtiin xaafadiina ku jirtaan raashinkiina waa astaa xaaladan ilaa 5 biri qaadan kartaa 2 biri ku soo gabagabowta maanta waa laba arinta way fugaa kartaa marka siimbir waxa loo baahan yahay taxadir magaalada hadee qalalaasa ka socdo guriyaada iska joog maxaa ku soo waalay maxaa ka soo jirkisi maxaa magaalada ka soo jir waa may is ilaali isku badnaada Soomaaliya anaga hadda iska fikirin cid binaadana naga fikiraysa ma dadkan waxay u soo cararayeen meelaha Soomaaliya meelaha ajnabi ah ilaa imeelahooda meel la dhaafay mar nin kasta nin careesan wuxuu ku dhifta cid qaba hebel ma la dhihi karo qofka bini'aadanka hadda maanta ama qof la dilo qof hebel aad dishay markii la dhahay markaas oo raadlay laakiin intaas oo kuna dhaxda ka gashay ama intaas banaan baa ku dhax dhimatay waxa ku dhax dhimatay waa dal la buuxo nin kasta iyadoo u gaarsiiyay waa hal qofood kaliis ma marka walaalayaal siimbiri 90% ala iska taxadiro cabsida ala iska dhaafo wuu iska dagaa xaaladan way iska dagaysaa wadan kasto Afrika ee meel kasta adduunka ka jirta Faransiiska ka jirta adduunka dhan Mareykanka ka jirta laakiin waxa loo baahan yahay siimbiri waa la isku badnaada waa la is ilaaliyaa marka wax soo gadanaysiin dad dhalinyaro ah buuxo oo maqaayada wax ka cuno laakiin xaaladda markay degto la qiimeeyo hadda booliis iyo waxa roondeynayo marka siimbiri waxa loo baahan yahay siimbiri inuu is ilaalisaan bal aan si ilaalino walaalayaal alaasa nigu soo kordhiyay bal nin kasta isku badno doorasho wadamada badan Afrika ka socota qalalaasa waa jira waqti doorasho dal gaaro nin kasta siyaasi wuxuu u baahan yahay inuu xukun qabto xukunkan wuxuu u maleynaa inuu xoog loo imaan karo xoog loo ma imaan karo meesha xeelo iyo calaf haduu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku qori waa ka wadankan waxyaalaha ka socda kamid ah marka nin kasta cabsida ala iska dhaafo ala is dejiyo ala is ilaaliyo ala isku badnaado Soomaaliyeed halaas waana waa subscribe noo saar noo like gareeya mar insha Allah